sida ilo kala duwan ay xaqiijiyeen howlwadeennada mid ka mid ah diyaaradaha rayidka ee ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya, maamulka degmada Doolow ayaa ka hor istaagay socdaal ee shakhsiyaadka gobolka Gedo ka soo jeeda maanta ku tagi lahaayeen degmadaas. Guddoonka degmada ayaa maamulka shirkadda maxalli ah oo ka howlgasho Muqdisho ku wargeliyay inaysan Doolow keeni karin Maxamed Cabdulaahi Gardhuuba oo ah siyaasi ka soo jeeda koonfur galbeed gobolka Gedo ee magaalada Luuqa. Maxamed Cabdulaahi Gardhuub wuxuu ka mid ahaa garabkii wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdilsi Janan ee sanadihii hore uu wareegay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu horey uga tirsanaa saraakiil ka goosatay Axmed Madoobe. Inta badan degmooyinka gobolka Gedo waxaa gacanta ku haya oo guddoomiyaal ka ah saraakiil ciidan oo kulanajiis u magacaabay xilal kala duwan, kuwaas oo u muuqda inay sii wadaan dhibaatooyinka dadka gobolka ay ku hayaan sanadihii la soo dhaafay. Inkastoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu dhowaan sheegay inuu u istaagay xalka gobolka Gedo, haddana ma muuqato wax tallaabo ah oo uu qaaday tan iyo farmaajo markii uu baneeyay xafiiska. Mana cadda go'aan dowladda ay ka qaadan doonto gobolkaasi ee la xiriira xaaladda hadda soo korodhay iyo kuwa mustaqbalka la filin karo. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa tilmaamaya in safiirka Soomaaliya dalkaasi Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu isaga baxay kulan martiqaad ah oo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta u sameeyay safiirka dalkiisa Kenya ku sugan. Danjire Tarsan ayaa ka baxay kulanka ka gadaal markii dowladda Kenya kulanka ku casuuntay xubno ka socda Somaliland, gaar ahaan u qaabilsan dalka Kenya, una aqoonsatay safiirnimo. Sidaas oo kalena la isbarbar dhigay kuraasta ay fariisanayaan labada dhinac, waxaana madasha la keenay calanka Soomaaliya iyo kan Somaliland oo isbarbar yaala, taas oo ka dhigan in Kenya ay u aqoonsatay dal ka mid ah dalalka ay casuuntay ee safiiradooda ka jooga Nairobi, taas oo ka carootay dowladda federaalka Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya Kenya Danjire Tarsan ayaa ka baxay shirka, waxaana fariin degdeg ah uu soo gaarsiiyay filla Soomaaliya, taas oo safaaradda Soomaaliya ku cadeynayso ficilada Kenya ee ka dhanka madaxbannaanida Soomaaliya. Kenya ayaa xiriirka ila leedahay Soomaaliya xumaa 4 sano ee la soo dhaafay sababo la xiriira ku xadgudubka dhulka, hawada, badda Soomaaliya, waxaana Nairobi hore u doonaysa inay ka qaadato qayb ka mid ah badda Soomaaliya, taas oo aysan weli aqbalin go'aankii maxkamadda ICJ ka soo baxay sanadii hore. Arrintan ayaa waxay u muuqataa Kenya oo ku xadgudub qarannimada Soomaaliya ku sameynayso, iyadoo Tarsan uu bilaabay inuu arrintaasi ka hor yimaado. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa lagu wadaa inuu ku laabto magaalada Garowe kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isku fahmi waayeen inuu u magacaabo ra'iisul wasaaraha dalka ilo wareedi lagu kalsoon yahay. Sida ay tilmaameen, Siciid Cabdulaahi Dani ayaa maalmahan Muqdisho ka waday olole xooggan, isagoo si xeen ah xildhibaanada ula kulmayay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka cabsaday in Siciid Dani uu isku dhiibo, isagoo ka baqay inay isku dhacaan waqti hore. Siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubbaland iyo Puntland ayaa si weyn ugu loolamaya xilka ra'iisul wasaaraha, waxaana lagu wadaa in madaxweynaha uu magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub. Dani wuxuu sidoo kale doonayaa haddii uu isagu heli waayo xilkaasi, uu Xasan Sheekh Maxamuud cays ku saari doono shakhsi isagu uu daaha gadaashiisa ka maamulo oo ka dhex yimaada kooxda Aranjan ee Cabdiraxmaan Faroole geed fadhiga u yahay. Hase yeeshee, damacaasi wuxuu sabab u noqday in Garowe hadda qarka u saaran tahay inay weyso xilka ra'iisul wasaaraha. Ilo loo qaateen ah ayaa waxay warinayaan in sanadkan ra'iisul wasaaraha ka imaan karo dhanka magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubbaland, isla markaana uu hogaamiyaha maamulkaasi Axmed Madoobe Siciid Dani kaga adkaaday loolankii beelaha daarood ugu jireen xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhanka kale, xogaha la helayo ayaa tilmaamaya haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu shakhsi ka soo jeeda Puntland u magacaabo xilkaas, uu noqon doono mid ka yimaado gudaha kooxdiisa siyaasad ahaan, gaar ahaan xisbiga UDP, iyadoo ujeedka uu yahay inuu ka fogaado ra'iisul wasaare majaraha loo hayo. Sida caadiyan sanadihii la soo dhaafay, haddii madaxweynaha uu ka yimaado Muqdisho, waxaa ra'iisul wasaaraha laga dhigi jiray shakhsi ka soo jeeda magaalooyinka Garowe iyo Gedo,
hase yeeshee waxaa hadda si weyn u xooggan xogaha sheegaya in xasan sheekh maxamuud oo markii ugu horeysay xilka ra'iisul wasaaraha uu siin doono beesha Ogaadeena. Siciid Dani wuxuu ku guuldareystay inuu helo kursiga madaxweynaha Soomaaliya doorashadii dhacday 15 May. wuxuu ku fashilmay in loo magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. wuxuu ku hungoobay in shakhsi uu wato loo dhiibo xilkaas. wuxuu qarka u saaran yahay in sabab uu isagu leeyahay xilkaasi ugu wareego magaalada Kismaayo. dhowaan ayay ahayd markii la taliyay hore dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin uu sheegay in Puntland ay ku qasaartay garab istaagii ee Jubbaland la garab taagnay siyaasadda. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu ku laabto Garowe ee xarunta maamulkaas kadib markii uu xaqiiqsaday inaysan suurtagal noqon doonin laba ujeedo ku wajahan magacaabista ra'iisul wasaaraha 21aad ee Soomaaliya kaas oo la filayo in saacadaha soo aadan lagu dhawaaqo.